السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عبد علي سو دقن مقالة ميلبون ودنك أستراليا. فيديو كان وحن أدوبايا أرمها خصوصا شركة اللي مقعدة on passive سيدا القداشي اللي كارتان من مقع هو your next stop is on passive. هدي فيديو كان واد أركته أما أول أركو صدره أديكو دانينايا أما بقى أن هراء مقال on passive أي تاي waxaan halkan ku sharaxayaa sida ay muhiimadda u tahay inaad videogan si fiican aad u dhuuxdo oo aad u dhegeysato 15 daqiiqo 20 daqiiqo oo soo socoto waqtigaaga 20 daqiiqo asiiso waxa laga yaabaa inay noloshaada wax ka bedesho sidaan hore u sheegay magacaygu waa Cabdi Cali Sow degan magaalada Melbourne waddanka Australia walaal waxaan kugu yeerayaa inaad ka soo mid noqoto shirkaddan on passive maxay tahay on passive waxaan u kala qaadayaa laba nooc on passive sideeda maxay tahay qabataa iyo maxaa aniga wadanahu igu jiro oo aan ka faa'iidaya labadaas waaye inta waxa kale ku dhamaystirayaa qofka bini'aadamka noloshiisa intuu adduunka ku nool yahay waxa muhiimka ah inuu qabto inay tahay okay on passive waa company AI IT AI waxa la yiraahdaa artificial intelligence ama caqliga macmalka ah IT waa information technology waa technologyada casriga oo adduunku hadda u socdo ayay shirkadaanu ku saabsan tahay ama ka ganacsataa waxa la soo sameeyay muddo 5 sano ah 2018 ilaa iyo waqti xaadirkan aan ku jirno oo ay soo saartay productigeedii ugu horeeyay ee suuqa geysay oo anagu aan iibsanay aniga iyo 7,000 oo qofood oo Soomaaliya dad gaaraya ayaa ku jira 2 sano iyo bar ayaan ka tirsanahay shirkaddan oo aan Soomaalida ugu yeerayay waxaan ahay hogaamiyaasha kamid ah on passive kuna metela Soomaalida sida daraadeed on passive waa IT company AI artificial intelligence and information technology oo ka ganacsata information technology loo yaqaano SaaS product software as a service oo ay isticmaalaan shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar xafiisyada dowladaha ururada kuwa maaragtay private-ka iyo kuwa maaragtay tabarucaad sameeyo meel walba oo shaqaale ka shaqeeyo oo xafiis ah ama public ha noqdo ama dowlad ha noqoto ayaa loogu talagalay inay isticmaalaan una fududeeyaan nolol maalmeedkooda ama shaqo maalmoodkooda ay ku gutaan on passive waxay sameynaysaa ilaa iyo content product oo software digitalis ah kuwa free ah iyo kuwa lacag ah oo xafiisyada loogu shaqeysan u shigayo iyo kuwa aalada kale oo free oo social media oo haddaba aad isticmaashaan idinku sida Facebook TikTok Instagram aad isticmaashaan kuwaas la mid ah iyo kuwa ay shirkadahaas oo aan hore u soo sheegay ay isticmaalaan oo subscription lagu sameeyo oo beec oo hay'aduhu ay iibsadaan dowladuhu ay iibsadaan oo nolosha laakiin waxay uga duwan tahay tanu waa shirkad cusub oo laga soo dhisay hoos laga soo dhisay waa single sign on oo hal meel aad ka galayso macnaha waxaan ka wadaa hal meel aad ka galayso hadda waxa jira way yaalin qalabkan on passive ku u eg laakiin aan qurux ku dhamayn qiimana aan ku gaaraynin way jiraan hase yeeshee iyagoo ay jiraan ay haddana waxay kala yaaliin suuqyo kala duwan oo macnaheedu yahay kambaniyaal kala duwan ayaa haysta sida ka soo qaad Zoom oo kaleeto magaciisa Zoom la yiraahdaa waa kaligiis waa kambani waana kambaniga magaciisi waa ganacsiga magaciisi halkaas aalado isticmaala halkaas aalado haysta billions of dollars oo fadhiya anaga productgeena hadda ugu horeyso oo shalay September kugeedii aan kambanigu soo saaray waxa la dhahaa oo connect oo booskaas Zoom ku jira kana xoog badan kana quwad badan kana qurux badan kana raqiisan kuwaas iyo kuwa lamida iyo kuwa freega intaba way soo saartaa okay adiga maxaa doonaa kugu jira marka inaad soo gasho adduunyada kam ay saddex wali wax laga ganacsado ganacsigiisa barto wuxuu u baahan yahay maalgashi wuxuu u baahan yahay soo maxaad ka ganacsanaysaa noocee u ganacsanaysaa ma raashin ka ganacsanaysaa ma qalab dhisma ka ganacsanaysaa ma gaadiid ka ganacsanaysaa ma suuqley noqonaysaa ganacsiga horta 100 nooc u kala baxaa okay hase yeeshee waa inaad waqti gelisaa horta dhinaceerta in aado meeqa kaaga baxayso
faa'iido macnaha waxay u baahan tahay shaqo badan inaad geliso horta adoo lacagtaada wato ayaa haddana waxaad u baaraan degaysaa meeshii aad ka bilaabi lahayd waqtiyaad gelin lahayd xoogaad gelin lahayd shirkadaanu iyadoo waxa ay ka ganacsanayso ay tahay aysan ahayn waxyaabihii caadiga ahaayo dee suuqyada yiiloo kaleeto maqal oo muuqaalka ahay oo si muuqaal ama ha noqoto maqaayad ama baqaar ha noqoto ama baabuur meel lagu gado ha noqoto ma aha wax muuqda waa wax software ah adigu ma aadan dhisin adigu ma aadan suuq gey doontid adigu maaragtay haddii ilankeeda leeyahay ma suuq geynaysid ma gadaysid ma arkaysid ma samaynaysid ma jabaayo ma dhammaanayo lama cunaayo macnaha waa wax weligoodii allahood jiraaya waa lagu diyaariyey kambanigana muddo intaasoo sanaa kasoo shaqaynayay adiga basically waxa danta kugu jirta waxay tahay waxaad kasoo mid noqonaysaa horta intaanan kugu gelin waxa uga soo mid noqonaysa waxaan ku hormarayaa kambanigan yaa samaynuhaya maxaase loo samaynuhaya ulajeedadiisu maxay tahay waxaan ognahay ganacsigoo dhan qof walba markuu samaynayo ama shaqsi ha samaysto ama iyadoo shirkada ha la sameeyo markii ulajeedada ganacsiga adduunyada maanta aan ku noolnahoon naqaano waxaan naqaanan ku sheegaynaa waxaan ambassador ah idin sheegay horta waa wax cusub wax aad maqasheen ama aad taqaaniin ma aha sababtana waa idin sheegaa waxaan naqaanaa ganacsi caadi ah ama qof ha bilaabo ama kambani ha bilaabo ama laba qof oo isu tagto ha bilaawdo ulajeedada loo bilaabo waxay tahay qof walba hube inuu isagu shaqsigiisa ama shaqsiyadooda ay u taajiraan ay ka baxaan dhibaatada lacag la'aanta hayso iyo ganacsi dee waa inuu taajir noqdo qofka uu nolosha maalmihiisa kaalmeeyo oo safeyshaante noqdo basically ayuu u sameeyaa on passive waxaa samaynuhaayo nin la dhahaayo ash bufarax oo ah nin muslim ah Palestinian American ah master degree haysto 20 sano internetka kasoo shaqaynayay degan wadanka Mareykanka gobolkiisa Florida ashraf mufarax haddaan taariikhdiisa ka sheekeeyo waa nin kusoo dhex jiray internetka muddo 22 sano ah wuxuu soo arkay dhibaatada ka jirta internetka iyo aaladaha internetka markay bilaabatay iyadaba dhowr nooc ah internetka lacag looga sameeyo oo laga shaqeystaa laakiin qof walba oo horumarka ba gaari karo sababtuna waxay tahay ama aqoontiya u diidaysa ama teknolojiyada u diidaysa ama fagaara ka hadalkuusan aqoonin ama iibgeyntuusan ku fiicnayn qofka asagoo intaas ay isugu tagtay ayuu rabaa inuu isbedel sameeyo qof baa maaragtay wax la soo sheergaraynaya wuxuu leeyahay inta soo gal saanwaay lacag laga sameynaa meeshii markuu galo oo lacagtii laga qaato wixii laga rabay inuu sameeyo qofkii ma samayn karo fagaara ka hadalkii ma yaqaano sidii wax loo iibgeeyey ma yaqaano email diritaan macnaha teknolojiyada isku soo duub ama email diritaan ha noqoto ama content creation ha noqoto ama video la duuba ha noqoto macnaha wixiyaaba ku adagba waxa ku adag teknolojiyadii iyo qaabkii iyo luuqadii ingiriiska ku adag ilan wuxuu ingiriiska ku shaqeeyaa intaas markii la isugu daro qofka uu meeshii galo lacagtii laga qaado wixii laga rabo inuu sameeyo ma sameey kariyo waxay noqotay markii in waqtina laga dhumiyo lacagna uu ku dhumiyo ashraf mufarax ayaa marqaati usoo ahay arkay in 3% dadka waxaan alifa nooc yarata ha noqoto email marketing ha noqoto dropshipping ha noqoto affiliate marketing ha noqoto whatever oo ganacsi oo internet laga sameeyo lacag hadday noqoto 3% qof oo u sarreyso oo aliftay ayaa ku guuleysata 97% way ku hingoobaan sababtuna waa mid hadda hore ku soo sheegay ash mufarax markuu ogaaday in taas ay dhibaatada caqabada ay jirto ay tahay xaq darrada jirto beenta loo sheegay dadka in uu sameeyo meel internet ah oo ama ha noqoto company kale inuu wax u iibiyo ama ha noqoto miduu asagu uu dhisa ha noqoto inuu sameeyo company internet lacag laga sameeyo laakiin maamada suuqa joogta iyo aabaha soo daalay ama wiilka dhalinyarada ah maaragtay jaamacadda ka soo baxay ama weligiisba baagamundo ahay laakiin aan ogeyn meesha noloshiisa u socoto in uu qof walba oo adduunkan jooga luuqad aysan ku xirayn diin aysan ku xirayn dhalasho aysan ku xirayn qof walba huba soo galo oo horumarka gaarayo sababtu maxay tahay it's 100% automation waxaa la yidhahdaa wixii ma muuqdaanoo adigu suuqa ma geynaysid wixii adigu contactigii ma samaynaysid marketingii ma samaynaysid qofkii aad ka wax walbo 100% companigan ayaa qabanaya inuu sameeyo meel dadkoo dhammo ay u siman yihiin horumarka hadday yihiin waayo laakiin isbedel doon hadduu qofku yahay qof aragti fog leh aaminaad leh kusoo biiraya companigan dadkaasaan ka mid ahay aniga
dadaa iga horreeyey soomaali badanaan ugu yeera kasoo qayb galeen ku jiraan 7,000 oo qofood kor u dhaafaya way u soo galeen because way ku mashquuleen way arkeen faa'iido u leeyahay arkeen ma aha arabki xumaayo inta la isu soo diro $50 geli $100 geli ma aha kii xumaayo sarifka lacagaha qalada soomaalida lagu dhacay ma aha waa company 5 wadan oo ku yaala xaruntiisa weyn Mareykanka ku taala state gobolka Florida Singapore oo ku yaala waxaa jiro 1,500 oo qofood oo engineer ah oo qalabkan dhisaayo IT-gan dhisaayo oo teknolojiyadan dhisaayo waa idin tusoonaa company-ga meelaha uu ku yaalo iyo waa idin tusi doonaa screen-ka idin share gareynayo waa idin tusi doonaa 1,500 oo qofood kor u dhaafay engineer ah oo maalin walba lacag si 5 sano oo dhalato oo dhamaata ay maalin walba la shaqeynaayo 5 wuxuu ku yaalaa xafiiskiisa koowaad oo Florida meesha uu degan yahay ninkaas Singapore ku yaala Hyderabad magaalada leedahay India oo maarta teknolojiyada iyo IT-da ku caan baxday ayuu ku yaala xafiiska ugu dheer adduunka 2 dabaq ku leedahay on passive oo la yiraahdo Burj Khalifa sarta ugu dheer dabaqa 130 iyo afraad iyo dabaqa ugu sareeya sarta 151 on passive ee iibsatay ayaa iskale sarta ma leh 2 dabaq ay leedahay sawirkan u jeedin oo gadaasheeda ah train station waa magaceeda ku qoran u jeedaa on passive train station la dhahaa waagi hore waxa la dhihi jiray dadka Dubai joogo qof walba oo Dubai joogta taqaano weydii oo ku nool Al Safa la dhihi jiray Al Safa train station magac waa laga bedelay dawladda Imaaraat iyaga kaligood ma on passive markay tartanka waxay la galeen kambaniyal waaweyn Google Cisco Amazon Facebook maxaa IBM Dell intaasoo company oo train station kan meesha uu ku yaalo waxa la dhahaa Dubai Internet City waxa ku yaalo kambaniyasha adduunka ugu waaweyn oo la yaqaano caanka ah ayaa waxay ku leeyihiin xafiisyo train station kan ujeedada on passive ay u qaadato contract 10 sano ah oo furan waa 10 sano bilaa waa laakiin waa open waa haday rabaan way ku dari karaan 20 kale 30 kale ku dari karaan sababta ay berkee shaqaalaha u shaqo tagay company-gaas 1 milyan oo qofood ee train station-ka isticmaasho maalintii 900,000 dadka u dhaafay ayaa train station-ka ay leedahay waxay ku leedahay xafiis Egypt Nile waxay ku leedahay Abu Dhabi waa idin tusi doonaa okay ujeedadu marka waxay tahay aan hadalka dheereyneynin qofka bini aadanka ah adiga maxaa dad kugu jira marka aan ku celiyo adiga waxa dad kugu jirto inaad ku soo biirto wuxuu leeyahay free product sida hadda aad isticmaashay Gmail waxaad isticmaashaa maxaa la yiraahdaa Snapchat iyo Facebook waxaad isticmaashaa WhatsApp wuxuu leeyahay product noocaas oo kaleeta oo aad free ku isticmaali karto adigoon lacag dhiibin credit card-kaaga soo bixin jeebkaaga gacanta gelin ayaad ku soo biiraysaa marka ku soo biirto waxaan haynaa groupyo WhatsApp yaala jiro oo Soomaalidu ay leedahay kugu daraynaa isbuuc walba loo sharaxnaa waxay tahay iyo qaabka aad maaragtay horumar uga gaaraysid meeshaas ayaad hore uga soconaysaa waa haddii aad tahay qof raba inuu isbedel sameeyo haddii aad tahay qof aragti fog haddii aad tahay qof hami leh waayo waxa waaye Britole waxa laga yaabaa waxaan videogan mar labaad inaan daawato adraa wallahi arrintan hadda qooraan maqlay shalay ma horeeyo waa dambeeyahay tiri Soomaalidu muhiimadda ugu weyn waxay tahay af Ingiriiska waxa la dhahaa the fundamental key to success is taking action furaha ugu horeeya ee horumarku wuxuu yahay qofku waa inuu ficilka ku dhaqaaqa maanta aniga hadda iraahdo waa inaan suuq aadaa laakiin aan iska fadhiyo suuqa ma aadayo ilaa aan istaago oon iriddan ka baxo haddii aan iraahdo waa inaan xogaa yara culays baa soo koray war waa inaan gym-ka tagaa haddii aanan gym tagin culaysku iga dhacay gym inuu culayska iga dhacay laakiin gym-kina uma socdo maalin walba waa isballaminaya maalin walba ballaminaya no ma shaqaynayso sidoo kaleeto waxa aan kugu yeerayaaho waa wax jaanis baad haysataa maanta Britole sida maanta sida Google-ka aad u taqaano sida Amazon aad u taqaano sida aad Facebook u taqaano Britole on passive kor iyo hoos kii soo galaata ama ganacsi u soo gal ama qalabka ay isticmaalayaan u soo gal laakiin waxa xaqiiqo ah on passive inaadan ka maarmaynin hadda marka iyadoo bilaaw ah oo dad badan oo aysan ogeynin iska dhaaf kuwa iyadoo la dhisaayo background-ka ee soo galayo anigoo kale 2 sano iyo bar iyo kuwa igu horreeyo 5 sano sugaayay iyo Soomaalida hadda u dambeeyso sanad iyo wax la jiro soo gashay markii laga tago
on passive ilaa hadda dadka og waa 5 milyan ma dhaafayaan 6 milyan oo qofood adduunka inta joogto dad maqmaqlay waa jiraan laakiin weli aan u kurgelin waxaan ka hadlayaa adduunka dhan ka hadlayaa dad maqlay xayeysiinteeda arkay meel walba ka arkay laakiin aan u kurgelin waa jira 5 milyan laakiin hadda ku soo biirtay 1 milyan iyo 4 founders ilaa 3 milyan oo qofood oo maartay iyaguna gadaal ka soo galay markii founderka la xiray positionkiisa aasaasanimada la xiray berito le marka gurigaaga lagu keeno oo 100 milyan oo qofood ay ka hormarto oo safka aad gadaal ka soo gasho iyo in hadda talaabta qaado oo aad ficilka samayso tii ku roonta adiga go'aankeeda iska leh annaga waxa nagu waajiba anaga waxaan sababta videogan u duubayaa waxay tahay runtii horta kalsooniyan isku qaba waxa aan ka hadlayaa hon inay wax sax yihiin aaminsanahay wax bini aadamka noloshiisa tayda iyo taadana wax ka bedeli doonaan aaminsanahay waana igu waajib diiniin waajib igu tahay inaan wixii wanaagsan ummadda la sheergareeyo dad badan oo Soomaaliyeed walaalahan la sheergareeyay aaminay arkay maalin walba alxamdulillah daas taagan ma garatay adiguna sidoo kaleeto waxaan jeclaan lahay inaad ku soo biirto haddii marka videogan uu soo gaaro oo walaal kula sheergareeyo oo adiga intuu kuu sheegay aad tiri walaal maxay tahay walaal maxaa ka faa'iida maxay qabataa aad ku dhaxday oo videogan uu kuu soo diray ama ay kuu soo dirtay ee aad dhegaysato haddii aad go'aan ku gaarto inaad soo gasho ku noqo qofka kuu la sheergareeyay qofka kuu soo diray ee ku yiri bal daawo Cabdi Cali soo videogan oo ku duubo on passive ka la daawo oo ku dhaho asiga ku noqo iyada ku noqo linkiga ee kuu soo dirtay iska diiwaan gal haddii aysan qof kuu soo dirin oo aad si accident iyo ku aragtay ama aan qof hore kula wadaagin aniga linkiga iska diiwaan gal description-ka YouTube kan hoostiisa yaalo iska diiwaan gal okay hadda waxaan sameynayaa marka insha Allah I'll share my screen waxa ay tusayaa on passive meelaha ay joogto waxyaabaha ay ka ganacsato one sec ujeedina umalena on passive watana on passive ujeedin email wa free email onet kan mujida onet وهذا بحقي أو تريم سد أنت هو فري كان هو أو إي إس وسوق حل هذا أون باسيف وكان أن صوص صارنا أو كونكت هذا أو مرة سوق إمارة كان أو تراكر على لها كان لو حل لها أو فيرفاي سد حلام بركت وكان أو ميل كان كشكل أمر أو ميل هو أو ميل سد جيميل وكلتا محن أقولنا هي gmail.com yahoo.com hotmail.com outlook.com إن الجيران كان هو omel.ai AI waa artificial intelligence aqliga macmalka waa teknolojiya cusub oo adduunka ku soo korortay loona guuraayo emailkan wuxuu ka fiican yahay emailada hadda suuqa yaala gmail 5 gigabyte markay ku siiso oo documenti iyo rasiidi iyo waxaad ku xareysato ka bacdi markuu ka bixin waxa lagu leeyahay iibso mid cusub kan waa unlimited on passive wax walba soo saartaaho waa unlimited ulajeedadii na waa ku noqon doonaa loo sameeyo ashma farax laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego productkan OS كان واسو كان كوبره او كونكت او تراكر او فيريفايد سدح دان برودكت هادان كشيكايو marka او كونكت waa aalad ugu horeysa idin sheegay waa maqal iyo muuqaal suuqiisu waa 19 billion dollars Zoom u sareeyo kuwa kale to badanaa jira Webex Microsoft Team bla 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 iyago badan ay jiraan laakiin Zoom u sareeyo oo caan ah about 50-60 billion dollars of sameeyay waagi COVID-19 hadaysa $100 billion ahayn halnina iskale kaligiis jeebka ku shubtaa lacagta fahmt Zoom qofku dhahaysa kaale Zoom iibso ama subscribe ku samee waa lagu iibgeena waa lagu maamula waa lagu xayisiina wixii la gadana qayba laga siina ma dhaha ninka iskale Zoom oo in leerka maya Ashraf Mufarah on passive adigoo fadhido oo gurigaaga joogto ayay waxay ku ogolaadeen teknolojiyada ay sameeyeen inaad subscription ku sameyso hal bil ayaad jeebkaaga gacanta gelinaysaa weligaad dama jeebkaaga gacanta gelinaysid hal bil ugu horeyso alabta iibsato on passive ganacsigeedu waa ganacsi asugu isbixinaya
ما أهمية أديك كورنتيس ديبيس ما أهمية بيلكيس ديبيس ميدا ما لو بجابك عند كلينيس وحالي هذا self funding business never happened before الدون قف تكنولوجيا كبني أنت أسوق سمستر وعرفت بيل جيت مايكروسوفت أوفيس وشلا ميل سكوتي الانتجريشن كور شن ميلك ليلين وورد باور شير باوربوينت سبريد شيت ميلك ليلين marka la isu keenay la yiraahdo Microsoft Office Microsoft Bill Gates wuxuu noqday ninka adduunka ugu taajirsan ayuu noqday waa shan product oo yaro waxba ay sameeyaan kan waa konton product hal meel la isu keenay la isku dhajiyo ujeedada loo sameeyana waxay tahay in adduunka wax looga bedelo to impact humanity Ashraf Mufarax wuxuu taagan yahay waxaan rabnaa inaan tuso taajiriinta tuugada ah iyo kambaniyaasha adduunkan wuxuu dhahay waxa yaalo waa lagu filan yihiin waa nin ilaahay soo diray nin qalbi wanaagsan waxaan horta on baasi xaq alle ka socota aniga saa aaminsanahay waa 2 sano ku dhex jiraa طبعا u sheegay dad og oo xataa waxa ku jira laakiin wali aan ku mashquulin oo aan fahmin ba waxa ay tahay on baasi laakiin on baasi runtii ganacsi caadi ma aha on baasi ma aha ganacsiyasha caadiga ee hal qof iyo laba qof iyo laba qof 10 qof shirkad iyo tuugo inta taajiraan jeeb gacanta ku buuxsadaan jeebka gacanta inta la galaan ay wixii ku jira inta ka baxaan waxaan qiimo lahayn ay ku siiyaan iyagu ay diyaarada iyo dayax gacmeed ay iibsadaan Ashraf Mufarax wuxuu la dagaalamayay musuqmaasuqa ganacsiga the correction to the corruption ala lahaa that's a hal heeska waay correction to the corruption saxitaanka musuqmaasuqa iyo sidii qof walba bini aadan oo adduunka ku noolo aqoontiisa iyo aqoon la'aantiisa xirfadiisa iyo xirfad la'aantiisa inuu on passive lacag ka sameeyo asigoon farta qaadin far dhaqaajin sababtu maxay tahay maxaad iibinayba wax muuqdo aad iibinayso meesha ma yaalin wax la cunaayo oo dhamaanaya ma aha wax jabaya ma aha wax expire noqonaya ma aha waxa adiga dhistay oo hadhowto markay jabaan samee lagu dhahayo ma aha engineering dhisaa joogaan adiga you just come with your email with your name alaabtaan hadba kiir la keenaad subscription ku samaynaysaa hal mar not every month hal mar company-gan website ku dhisaa traffic ku diraa xayeysiin ku diraa hosting ku samaynaa bulky email system ku samaynaa asiga xayeysiinay asiga la xiriiray asiga lacagta ka qaaday asiga ka iibinay wuxuu keenay kaliyo wax ka siina waxna ku siina wax aqabanaysa ma jiraan waxaad helaysaa xorriyadda lacagta iyo xorriyadda waqtiga tanoo kalena been ku sheegayo guligeed adduunka ma soo marin mana soo mari doonto haddii marka adiga aad tahay maamo ama aabbo hore u soo gulfiyay soo daalay haddii aad tahay nin dhalinyara iyo gabar dhalinyara oo mustaqbalkooda meesha u wado ilaa hadda garan la this is wa opportunity ku war waa fursad qaali ah hadday ku gaftana mar dambe soo noqonayso haddii aad 40 sano iyo ka badan tahay da'daadu tahay 40 sano iyo ka badan ay da'daadu tahay waxa shaki la'aan ah in hal ama laba fursad ay hore ku soo mareen oo aad adigoo u jeedo ay sidii qorax sii dhacaysa ay ku dhaaftay sidii qorax sii dhacaysa inay ku dhaaftay ayaa xaqiiq ah kanuna waa kii u dambeeyay ee noloshaada soo maro inta aad adduunkan ka tagin jump in now when ku sheegayo you have to join because you got nothing to lose ogaw maamayda aan ku sheegana waxay tahay the most fundamental key to success is taking action waa rabaa rooba lagu waaye qofka haddoosan ficilka ku darin waxa niyadiisa ku jira ama wax qalbigiisa soo gala ama uu rabo uu ku haminayo inuu sameeyo haddoosan ficil ku darin oosan u horseedin inuu isagu oro socdo wax isbedelaya male nothing will change marka waa kana ownet kan mujido ownet waa social media wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa podcasting loo yahay wuxuu leeyahay clubs oo leeyahay sida maaragtay kii dhaxasab isoo aga maqan yahay maxaa la yiraahdaa ruumumka la galay qoraalka la galgalay podcasting and blogger loo leeyahay AI ku xiran aqliga macmalka ah qof walba hoona soo magali karo qof verified ku sameeyay kaliya soo gali karo maxaa ku xiga oo tracker kan mujido oo tracker kan this is a Google Analytics xayeysiinta billions of dollars ee ka sameeyay Google meeqay sameeyay YouTube mataqaana adiga eday YouTube meeqay sameeyay alag sameeyay mataqaana oo kamaniga uu ka sameeyay iska dhaaf wax oo dadku qaybinayo yar-yarka oo markaad 100 video fiirso oo intaasoo kun oo view hesho lagu siinayo snuudier lagu siinayo iska dhaaf asiga meequu sameeyaa
saacadii waxaa la sameeyaa couple $100 million saacadii youtube kan aad ka daawanayso videogana aniga uma sameynayo inaan youtuber ma ihi aniga ma ka sameynayo maxaa la yiraahdaa I'm not monetizing my YouTube channel basically waxaan ugu duubaa YouTube si Soomaalidu ay isu gaarsiiso maadaama waxaanu yihiin wax wanaagsan in ummadda Soomaaliyeed ay kala okay waxaan u soo naqanayaa raali ahada Ashma Farax ujeedadiisu waxay tahay he wanted to change tuugada adduunkan ku ah minority-ga ku ah oo farakutiriska ah iyagu mar walba jaabka buuxsanaya dadkana waxaan qiimo lahayn siinaya inuu tuso afkiisan ka haya baan sheegayo wallahi heesa ay dhowr waxaan tusaynaa oo dhahay in la wadaago taajirnimada taala adduunka ilaahay qalqigan ku uumay in la wadaagaho in ay ku jirto caafimaad inay ku jirto nabad la helo inay ku jirto dad isjecel inay ku jirto adduunyo isjecel oo dadkuna mugaas ujeedada ay u yimideen adduunkan ay fulfillment ku sameeyaan iyo kaamila dadku inay isjeclaadaan nabad ku noolaadaan qof walba hoona oo ujeedada loo uumay inuu ilaahay caabudo dadka bini'aadamka tixgeliyo respect gareeyo qof walba hubo oo caring iyo jecel iyo isku sameeyo bini'aadam that's how we've been created wasida nolol sameeyay laakiin in tuugo dadka dhacdo oo qolana ay maaragtay dhulka hoostiisa jiifaan oo faqrinimo iyo baahi iyo noloshooda la dala dhacayaan niman ay diyaarada ay gacmaha ku xayaan no that is why he's doing this asugu waa nin millionaire waa billionaire why wuxuu yiri we've been to the top and we saw it was not fulfilling so we have to come back and you come with us we come to take you to the top هذا القالس هذا القائمة معناه هذا حوالي الصومال كوفسر horumar meesha laga gaaro waanu gaarno yiri macna xaqooda lacag sameyntii iyo noloshii iyo wanaagay waan tagno waan aragnaa markaan soo aragno wuxuu yiri qiimo waan noogu yeeloweys qiimo male marka wuxuu yiri waa soo naqanay idinka waxaan u sameeynaa in idinkana idin qaadno oon kor idin geeyno oo aan horumarka qayb idinka gaarsiino walaalayaal waa ka gudbaaya waa kana on passive website-keeda waa iska diiwaan gelin inta timaada iska diiwaan gelin oo kaasa log in uu leeyahay registration da ujeedin falaarteeda log in waa marka wax samaysto weesha ka geli karta yes registration contact us career shaqooyinka ay hayso bloggeeda waa kaasa media center about us productgeeda home pagekeeda mujda is nothing don't register here because hada inta iska diiwaan gelisid meel aadaysa mataqaanad waxa laga yaabaa in qof kaleeto oo ajnabi oo anagoo kaleeto Soomaaliya oo meesha ku jira in lagu hoos geeyo luutana maarta tababar iyo horusocodkii iyo maarta ina fahamtid on baasif waxay tahay ay kugu adkaato maadaama dadkaas adna isfahmayaan marka qof Soomaaliya ka soo gal hadii aan qof Soomaali kula wadaagina aniga ka soo galnayga description ka hooso oo maarta aad arki doontaa walaalayaal intaas oo kusoo koobaya oo verified kana itusaya iska dhaf oo mail iska dhaf oo netki waa social media idin sheegay Instagram Facebook iyo TikTok oo la isku daro ka fiican OBS كان وسوقه on passive marketplace كذا واي او كونكت وادين شيغا او تراكر كان جوجل اناليتكس بنانك او دغايا يوتيوب كاس xunka xayisiinta kaas kaliya ma arkino ayaa wuxuu yahay kali each product oo meeshan taala huwa company adiga bal qiyaas bal adiga konton company oo hal meel la isugu keeno on passive ka war adig lacagta ay sameeyaan on passive waxay noqonaysaa company-ga ugu lacag sameynta badan adduunka iga qorani maanta boqolaal sano oo soo socotay inay jiraysaa hadda ka horna wuxuu dhahay Ashma Farax adduunyo waxaa jiri jirtay on passive ka hor iyo on passive ka bacd ka hor adiga kaas before on passive and after on passive boy digital product kan kaliya ma ahana on passive waxay soo wadaa innovation hal abuur oo muuqaal ah oo adduunka dhan wax ka bedeli doono oo cajiib ah shalay waxaan ogeynaa taleefanka xumaayo weynaa ma xasuusataa taleefanka weynaa ma xasuusataa oo batanada la rixrixi jiray maxaa yimid oo bedelay touch screen ay maaday soma waxyaalo badan oo noocaas oo kaleeta oo physical product oo adduunka boqolaal sano soo socoto wax ka bedeli doono on passive ka hor iyo on passive kadib ay sheekada marooysa ma ka hadloohayno meeqaanka sameeyha maxaa faa'iido iga soo gelay maxaa no inaad soo gasho the early bird aldaha early bird dadka marka hore subaxda safka soo gala marka hore inta adeegtaan ay suuqa ka tagaan ma ahino
haddaa soo gasho inta aan adduunyada dhan ogaanin oo 100 milyan kaa soo hormarin yah safka horaad gelaysaa noloshaadana wax badanaa iska bedelaayo waxaad helaysaa xorriyadda waqtiga iyo xorriyadda lacagta join on passive videoga hadduu kusoo gaaranayo youtube-kayga subscribe saar share ku dhif videogan si ummad badan soomaalida dhibaatana haysto waa ogtihiin shaqo la'aanaa jirto rafaad dagaalo 30 sano ku jirnaa on passive waxay noo noqonaysaa meeshii ay waddankaynu ku degi lahay haddii la helo 2 milyan oo qof oo soo gasho 3 milyan oo qof oo Soomaaliya hadday soo gasho umaleema Soomaalida ba inay isqabqabsanayso nabadaad degayso qof walba wuxuu helayaa xorriyadda lacagta iyo xorriyadda waqtiga waqti aad adigu ilmahaaga iyo familkaaga aad kula sheekaysato waa ognaa dadka qurbaha jooga oo dhibaatada ay nagu hayo waqtiga 24 hours ka nagu soo kor wareegaya 24 saac oo meel loo raacdayna aanan garanaynin gurigaaga adoo joogto ayaad maalin walba lacag ku soo dhacaysaa waqtigaagana waxaad ku qarashgaraynaysaa carruurtaada iyo ilmahaaga ama dad waxaad ku shaqaysanaysaa dad masaakiina oo aad ama wax ku bar ama diin ku bar ama cilmi kale ku bar ama meelo geegey aad ku caawinaysaa xorriyadda lacagtana kama welwelaysa suuqa inta tagtid alla ilaha alaabtan maanta ma iibsan karaa alla ilaha maxaa la yidhahdaa cilmihayga waxaan u iibi karaa oo waddankan haddaan ka tago oo aan Soomaaliya aado guriga ijaarkiisa iga bixinayo waxaas dhan waa dhamaatay shirkadaas waa isku dhamaatay you need to jump in on passive waxay kugu qasbaysaa horumar on passive will force you to be successful waana waxa loo sameeyey inay adigoo kaleeto oo gulfis ku soo daalay oo xaaraan lagugu haystay oo intaasoo saneeto maaragtay ama qurbo ku daalanay amaba meel u shaqo taga la ayaa loogu talagalay inuu horumar ka gaaro kor lagu soo qaado laakiin hal wax in ogaatana waa laga rabaa aan kusoo gabagabeynayo videogan Ashraf Mufarax wuxuu ka rabaa ballan uu ka rabaa markuu horumarka ku gaarsiiyo mar walba waa ku daraya markuu horumarka ku gaarsiiyo xorriyadda lacagta ku siiyo xorriyadda waqtiga ku siiyo aad guri ama baawur iyo wax la waxaad aad iibsato oo ay ka foqdo ceejada Ashraf Mufarax wuxuu ka rabaa sida uu ku sameeyay inaad qof bini aadan adigu samayso ehelkaaga ha ahaado walaalkaa kale ha ahaado ceel qodaya isbitaal dhistaya waddan dhistaya you have to impact the humanity sida adiga noloshaada wax looga bedelo adiguna waa inaad wax uga bedeshaa qof walba haddaad qof aad caawiso weysana waa inaad xayawaanada duurjoogta aad caawiso waa hadalkayga ma ah ujeedada aan u samaynayo waa intaasoo dhaca I'm working so hard so I can go to heaven imagine that si adag ayaan u shaqaynayaa hooyo si aan janno ku galo si adag ayaan u shaqaynayaa sheegna waa xaqiiq صدقوا واي وحن أسمعنا حوجي سيا صدقة علمي سيا صدقة شانس أنا بولفين واي على عكتيسي هل دولار ولي أون باسيف لقى مصمين كأمريكا كم مصمين مركز وحكي على شان وطن وحكي على صار تصدير عادي شيء برج خليفة كمبنيال بليونز أوف دولارز اسمه أيوة حكي رياضان هم يقولوا إن ماشى سكرت تجان مركز لور صارنا وقلال صارنا طبعاً صارنا وحواي قناع سيء كجرا on passive waxay ganacsi ka bilaabeysaa meesha ugu sarreysa oo lagu riyoodo ayay ka bilaabeysaa marka ma aha sax miya iyo fake miya iyo xeegada iyo xanka sameeha iyo shirkadaas banaanka iska dhigto argino dantaada ugu weyn waxay tahay you have to take action and join on passive inta goorta walaalayaal website-kana waa kana www.onpassive.com you check luqadda bedela kartaa si impressiya in Brazil English lema كانوا كده Bengali Bengali Hindi English German Dutch French German Italian Portuguese Spanish Telugu Urdu Soomaalina uu ku jiraa marka ecosystemka kale aan tusayay kan iska mobile ka fiir meeshaan fiir warwareegayso oo verified kana hadda Facebook ma aragtay Facebook verified kana ku soo celinaya sida ku soo oo verified product-kan fiiriyaa soo socto ay tusaa Facebook $25 dadka qaato haya Instagram si soo cadeeyo qofku verified qofku waa inuu qofku uu yahay inuu isa sheego waa kana mujida product-ka on passive sameynayso oo verified la bangiyada laga isticmaala
Facebook hadda waxa waaye dowladaha ku qasbeen marka tuugadiyaa badatay spamkiyaa batay Facebook intaasoo bilyan oo qofood ku jirta leeyahay meel qofood account ka samaysatay oo fake ah meel qofood fake ah on passive kule oo kob iyo dacasi u saaran tahay iyo ubax iyo u saaran yahay magac beena wato bug ah qofay taa lama yaqaan nin miya naag miya tuug miya ay miya who knows ma dhacayso on passive o net waa kala OES kan mujeedaa on passive o net social media hada haddaa soo gashid lagama yaabo inaa kob iyo sawir iyo asaarat avatar mobile adigu ku eg oo wajigaaga shaabahaya saara kartaa hadduu sawirkaaga runta u eg laakiin oo koobi camal ah asaari kartaa laakiin magacaaga iyo adiga waa lagu og yahay qofka ta been ma ku soo galaysid waa kambani saxa waa kambani ka shaqeynaya xaqa iyo xuquuqda iyo cadaaladda ha noqoto ganacsiga tuugada iyo ha noqoto social media bugta ee dadka dhaco intaba wuxuu rabaa inuu sida saxda ah u maamulo oo ay nolosha bini'aadamka kale wax ka bedesho arrintaas ayaa anagu waxaan ka nahay hormuud uguna yeerina ummadda Soomaaliyeed cidii hamile oo aragti fog leh meel walba ay joogtaan ama qurbo joog ama Soomaaliya joog وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سدواو جنال كان هلا شير قريه هلا لا قريه كومنت على قسمه سي اي سومالي بدن ولا ليالي واركان واذا سلام يا قر لها ادسيو وعليكم السلام ورحمة الله stop sharing marka walaalayaal hadal badan haan ma buuxshaa la yiri hadal badan haan ma buuxsho on passive caadka xataa ma qari karo kuwa waxa arkaya Soomaaliya oo yaroo iska negative oo u maleeyo waxyaabo xun ka hayo dadka lagu soo afkibi oo Soomaalidu ay ka shaqaysan tahay oo maaragtay dad masaakiin lagu dhacay no on passive aniga 2 sano iyo bar $97 oo aan kula biiray aasnimo aan kula biiray waladkayga lagu soo celiyay 1 milyan iyo 400 oo qofood oo anigu aan ka tirsanaa Soomaali badan oo kale ay ka tirsan tahay loo soo wada celiyay 1.4 milyan meeqa mataqaana $97 ku dhifaaday 1.4 milyan oo qofood $150 milyan oo dollar ayaa qof walba loo soo celiyay $97 alaabta cusub hadda soo baxaysa oo connectiga cusub hadda soo baxayo waxa la iibinayaa $250 $10 marka OES ka soo gashaa free lagu siina 240 heris 240 asaasayaasha wax ku goynaysa 97 oo waladka loogu jirto 143 dhiibaya walaalaha kale cusubna 240 ka dhiibaya isku mid waay isku lacag dhiibooyna oo connected waa one time jeebkaaga dambe loo noqonaa waxa iyaga soo shaqeeyaan wax laga siiraa iyagana bisha dambana saasa ay ku dhiibaysaa subscription kale waxna iyaga qaadanaa waxna subscription lagu dhiibanaya xayeysiintii iyo website-kii iyo iibgeyntii waxa qabanaysa malaadi marka walaalayaal take action and thank you for watching and glad to see you inshallah we are success we are the top and we will be at the top inshallah God willing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.